hay weydiin isbeddelkayga hanay weydiin sababta aan kuu iloobay ma jirto dhir ama geed si qurux badnaada waraabin la'aan inaan ku iloobo caafimaadkayga ayaa ku jiray mar hore hala yaabin sidaan kuula hadlayo maanta waa hadal aad ii isticmaashay mar hore balse jacaylkan kuu qabay ayaa ii diidanaa inaan kuu sheego adiga kama dhalan reerkayga balse reerkayga dartaa waan u jari karay laakiin mar bay ahayd hadda ma ahan gacantayda mar bay qoraalada qaar kaala cabsan jirtay laakiin maanta ma ahan si kasta u hadal ama dhalan karta adigoo qalbi nadiif ah leh jawaabtu waa maya muhiim iima ahan marka qofka aad hadda tahay waana ka marmaa qofka aad hadda tahay aniga waanba ceebsan lahaa qof aan ogahay sidaan yeelay inaan la hadlo laakiin waan ku dhagaystay si taxadar leh balse ha ku sii adkaysan inaad sii wadato hadalkaaga xasuustaada ayaa dhib iigu filan aniga markaan soo xasuusto sidaad iila dhaqmi jirtay waxaan isweydiiyaa qof noocee ah ayaad ahayd damiir xumadaada waxaad ii ilowsiisay in jacayl laygu dhalay iyo inuu i keenay calaf adduunkan jacayl oo dhan waxaan jirin ayaad iiga aaminsiisay sidee maanta jacayl iigu soo hadal qaadi kartaa aniga haddii uu caqligaada ku celin waayey maanta ku cibri qaado hadalkayga waa mursal xuseen mursal باي باي hawli araysto maanta hilmaamay ka hadho ismahayna jacaylka amigayga waan ka saare ay xasuusin jacaylka agardaamiyo hawlihiisaba